السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الولي محمد أبوكر ومشهد كبرتان برشاد كمبيوتركا سيدو كلام ملتي ميديا برو برودكشن. عشركاني waxaan ku baran doonaa sida ugu fudud ee aad mobilkaaga aad ugu qaadi kartid sawir kadibna aad ku sameeysan karto Photoshop adigoo isticmaalayo laba qaabka koowaad oo ah adigoo ku sawirayo gacantaada qaabka labaad oo ah adigoo ku sawirayo tarbiyadii ama tripod qofba sida uu yaqaano waxyaalaha aan isticmaalayna waxa kamid ah midkan ee aad arkaysid waxa lagu xiraa mobilka wuxuu u galaa sida tan ee aad arkaysid sidan ayuu u galaa sidaas ayuu u galayaa waa arkay u maleynaa kadib marka waxaan u maleynaa marka kanna waa taqaanaan kanna waa midka lagu xiro kaamirooyinka hadii uu ahaan lahaa DSLR-yada kaamirooyinka waaweyn ayaa lagu xiraa okay waxaan u maleynaa marka si fiican ugu jeedaan halkani wuxuu ku leeyahay okay aan si fiican ugu aadiyo okay halkan wuxuu ku leeyahay badhan yar badhankan ayaa waxa laga rabaa in lagu xiro marka halkaas boortigan weyn ayaa laga rabaa in lagu xiro sida shaashada kaaga muuqata ugu horeen waxaan rabnaa marka inaan qalabkan isticmaaleyno mid by mid aan ku tuso hadda anaga waxaan rabnaa marka intaanan cashirkii aanan bilaabin ina horta nala daawataan muuqaalkan yar oo aan idin soo diyaarinay sida loogu xiro mobilka iyo geedkiisa iyo mobilka sida loogu xiro tarbiyadiga sida loogu xiro kadib qofka sida loo toosiyo anagoo aan u sheegayno step by step okay hadda waxaan rabnaa inaan ku duubno waa mobilka anaga hadda waxaan isticmaalayno waa STEM Plus qasab ma ahan inaan isticmaasho STEM Plus A50 any mobile aad markaas u baahan tahay waad isaga qaadi kartaa sawirka kaliya waxa muhiim ah inaad haysato mobilkii aad rabtay markaas inaad ku shaqeyso hadda anaga waxaan haysanaa STEM waxaan sameynaynaa marka ugu horeen waxaad furaysaa kaamirada marka aad furto waxa arkaysaa marka kaamiradaada automatically inuu kugu soo baxayo saddexda hadii ay dhacdo marka saddex shay inuu kugu keeno saddexdaas shay waxa waaye saddex zoom midna waa micro midna waa wide angle midna waa lower shot marka hadii kaamiradaada lenskiisa ay tahay tusaale ahaan saddex oo kala hadii ay tahay hadda anaga STEM waaye wuxuu leeyahay saddex lens waa 1 2 3 ayuu leeyahay marka wax weyn ma aha waxa sameynaysaa waxa tagaysaa setting si aad marka sawirka teesaraha aad u qaado waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho rule by 9 wax la dhaho inaad isticmaasho si aad u tagto marka waxa sameynaysaa marka kaamirada settingskiisa ayaa tagaysaa kadibna waxaad aadaysaa qaybta ugu hooseeyo waxaad raadinaysaa meeshan ay ku qoran tahay marka guideline marka guideline kaas hadii aadan helin awood uma lihid marka inaad qaado sawir kodka ah ama sawir teesaraha ah okay saas darteed waxa sameynaysaa marka guideline kan ayaa on dhaheena kadibna waxaan leenahay isla kaamirada ayaan ku laabaneynaa isla hadda kaamiradeena waxaan arkaynaa marka inay tahay afar gees waayo hadda waxaa arkaysaa in uu kaamirada inoo duubayo wiilka aan rabno sawirka inaan ka qaadno Cabdi Fataax aad u maasantahay aabo okay marka qaabkan waa isla qaabkan okay maxaan sameynaynaa marka asiga ayaan fariisinaynaa kaamirada angle waan kala bedeleynaa asiga ayaan fariisinaynaa okay marka hadda waxa halkan inoo yaalo waa tarbiyadi qof sida uu yaqaan ama tripod kaamiradiina waa tana way inoo diyaar tahay qofkiina waa ka fadhiya oo waxaan ku tusay sida loo toosiyo marka qofka mar walba uu fadhiyo aad toosinaysid isku day dhabarkiisa inaad jagsiiso because of qofka markaas attentionkiisa iyo garbihiisa uu ku saxsanaanayo sidoo kale waxa arkaysaa kaamirada inay inoo daarantay hadii aad haysatid tarbiyada noocan oo kala ah waxaad awood u leedahay kaamiradaada mobilka inaad ku xirto waayo way ka fiican tahay markaad ku sawiraysid tarbiyada laakiin hadii ay dhacdo inaadan tarbiyada haysanin aaminsanaa gacantaada qaabka loo qaadi lahaana haddaan rabaa inaan ku tuso ugu horeen waxaan rabaa inaan ku tuso iyadoo lagu qaadayo kaamirada bis midda mobilka ah laakiinse aanan tarbiyadii iyo wax noocaas loo isticmaalin si aad u qaado ugu horeen waxaad u baahan tahay wiilka markuu ku toosan yahay qaabkiisa iyo wixii oo dhan ku toosan yahay waxaad qabanaysaa mobilkaaga waxaad ku qabanaysaa gacantan ayaad mobilkaaga saan ugu qabanaysaa waayo waxa dhici karta gacanta inay inta ka aado okay inta aadan bilaabin marka shaqadaas waxa qasab ah kaamirada lenskiisa
inaad iska tirtirto because of wuxuu ka caawinayaa sawirkaaga inuu ku qaado high definition waayo haddii uu wasakh ka gaarsiisan yahay waxaa arkaysaa hadhow inuusan qaabka aad adigu u baahan tahay inaadan u helin okay wiilku way noo toosan yahay mar walba waxaad isku jimaysaa wejigiisa iyo wejigaaga isku dhaweey si hadhow ay u noqdaan wax saxan okay markuu wiilka sidatan ii yahay kaamirada waa aan tirtirtay waxa ii haray marka roll by 3 na waan isticmaalaa roll by 9 na waan isticmaalayaa oo guide-ka ah okay waxaan sameynaa marka laba qaab waa sameyn kartaa haddii ay kaamiradaada marka hal lens tahay ha ka sikanin distance dheer ha u dhaxaynin isku day marka kaamiradaada iyo qofka inaad isku dhawaataan haddii dhacdo marka inaad two lens leedahay adigoo ka fog ayaad waxaad awood u leedahay inaad zoomka ku soo dhawaysato muhiimadda waxa ah qofka wejigiisa inuu ku aado dhaxbartanka haddii aan dhana fookaan ka bixinayna okay waxa arkaysaa wejigiisa sorry taxsiin okay wejigiisa waxa arkaysaa inuu ku aadayo dhaxda okay haddii wejiga dhaxda ku aado isku day marka mar walba waxa qasab ah garabkan iyo garabkan in uu kaamirada ku aado hada fiiri labada garab waa isku jin laakiin day dhacdo inuu wax yar sidaa noqdo ama ay dhacdo wax yar inuu sidaa noqdo waxaad la kulmaysaa dhib badan waayo hadhow awood uma lihid inaad jarjarto saas darteeda marka labada garbo isku jimay qoortaada toos wax yar garkaaga hoos u dhig okay waxa arkaysaa marka qofka inuu si sax ah ku yahay dan maxaa sameynaya marka okay diyaar adfitaax okay waxa arkaynaa marka sawirka koowaad inaan ka qaadnay okay haddii gacantaada ama neefta waxaan isugu celiyo waxa waaye markaad sawirka qaadayso haddii aadan neefta isku celinin gacantaada waxaad dareemaysaa inay sameynayso shakin marka iska ilaali gacantaada inaysan shakin sameynin ama isluxid inaysan sameynin okay haddii aad isticmaalaysid marka tarbiyadii sidee ugu macquulsan waxa ugu macquulsan sida tan okay halkan waxa inoo yaalo waa tarbiyadii oo hadda idin soo sheegaya waxaan sameynaynaa marka tarbiyadiga ayaad camera sida loogu xirana haday waa idin tusay mar walba waxa muhiim ah inaad haysato geedan ka tarbiyadiga uu ku xirmaayo haddii aadan haysanin awood uma lihid wax alaala waxaad u baahan tahay inaad ka samaysato waayo ma celinayo geedkan kaligiisa inta ma celinayo marka waa inaad heshaa geedka tarbiyadiga loogu talagalay kamerada hoos loogu xiraayo okay markuu intaan sidatan ku yahay wax yar iska dhooji waayo waxa dhici karta markaad mobile ku xiraysid inuu ka farabaxsado ama mobile-kaaga uu damage gaaro okay waxaan sameynaynaa marka kan ayaan ku xireynaa okay iska ilaali marka meesha powerka iyo waxyaalahaas iska ilaali inuusan ku aadin okay haddii aan dhahno marka hadda kamerada sidan ayaan dhahaynaa haddaan dhahno waxaa arkaysaa ila fiiri okay waxaad dareemaysaa inuusan wejiga kula sineen okay wax yar kor ayaan u qaadaynaa kamerada waa ay dantay okay wax yar kor ayaan u qaadaynaa si aan u aragno okay waxaan arkaynaa marka hadda wiilka inuu saxan yahay fadhigiisa laakiin meesha la rabay kamerada inay sidatan u toosto waxay u toostay sidatan marka teesar marka la dhaho waa insaan loo sawiraa sidan haday noqoto teesaro bb looma sawiro okay maxaan sameynaynaa marka waa sidan tarbiyadigaaga nuuciisa kama hadli karo iyo qaabka uu yahay iyo sida uu yahay laakiin waxaan sameynaynaa qaabka ugu fudud si aan u sameyno okay tarbiyadiyaasha wuxuu leeyahay laba qaabna sidan ayaad u istaaji kartaa qaabna sidan waxaa la yiraahdaa landscape iyo portrait ayaa lagu kala magacaabaa okay waxaa leedahay marka sidan markaad tiraadid wax yar sawirka wejigiisa kula jimay dhabarkaaga jagsi okay sawirka waa nadiif waxaad dareemaysaa marka in uu xogeer uu aad u fog yahay marka zoomka ayaan isticmaalaynaa kamerada zoomkiisa inaan saan u isticmaashaa isku day sawirkaaga wuxuu noqonayaa pixelka ayaa dhimanayo marka isku day in kameradaada originalkiisa aad ku sawirto mar walba isku day haddaad zoom u baahan tahay inaad lugahaaga ku tagto zoom ha isku dayin marka zoomka oo mobile-ka inaad isticmaasho okay hadda labadiisa garba waa isku jin si aan si fiican kuu tuso labadiisa garba waa isku jin qoortaada toosi okay asigoo dhan waa jin waa okay waa nadiif waxaan sameynaynaa marka haddii ay dhacdo mobile-kaaga inuu sii leeyahay marka in timer aad ku xiran karto timerkaas marka la gaarana uu sawirkiisa asiga qaadayo haddii uu kugu xiran yahay ama uu leeyahay mobile-kaaga wuu kasii fiican yahay maxaan sameynaynaa marka timeka ayaad furaysaa keliga aad kusiinaysaa kadib waxaan leeyahay marka 2 second kadib qaad sawirka okay cabdifataax diyaariya 2 second kadib uu kaa qaadaa okay hadda uma baahnid inaad neef isku celisid iyo wax noocaas uma baahnid keliya waxaad leedahay sawirka qaad waxaa arkaysaa
2 second kadib sawirkii inuu qaado sawirkan waa nadiif waxaan la aadaynaa marka computerka shaqada dhiman ee aan rabno inaan sameeyno ayaan guda galaynaa insha Allah okay waxaan u maleynaa marka waan soo baranay sida kamerada loo xiro sida mobilka guidekiisa loo isticmaalo waxaas oo dhan okay dadka badanaa marka waxa dhici karta inay dhahaan ustaadi guideline maxaa la dhahaa guideline waxaa la dhahaa halkan waxaad shaashada ka arkaysaa computerkan fiirino shaashada waxaad ka arkaysaa guideline kan ee hadda shaashada kaaga muuqda ayaa waxa lagu magacaabaa guideline marka guideline kan haddii uu ka qaldan yahay waxaad ogaataa sawirkaaga inuu qaldanaanayo ma ahan guideline kan haddii aad mobilkaaga ka weyso inaadan sawir qaadi karin ma aha muhiimadda qofka waa inuu standard noqdaa kadibna uu wajigiisa ku aadanaadaa kamerada ma la rabo kamerada marka isku day markaad wax sawiraysid intaas yar waa ka iloognay marka wax sawiraysid mobilkaaga yuusan saan noqonin ama yuusan saan noqonin ha noqdo mobilkaaga iyo qofka fadhiya inay isku jin noqdaan sababtoo hadhow waxaa dhici karta qofka inuu saan noqdo oo halkaas sawirka waxaa arkaysaa niyow garka kor iga qaadma ku leeyahay qof dadka qaar waxaa arkaysaa inuu saas noqonayo sawirada aan soo qaadnay waa 3dan xabo inkastoo halkan xabo inaga qaldamay aan iska bixino okay waxa halkan inoo yaala 2 sawir inkastoo hadda anaga aan sameynayno hal sawir maxaan sameynaynaa sidan cashirkeena hore ugu soo baranay waxaa jirta cashir ka horeeyay oo ah sida sawir loo soo gashanayo photoshopka sidoo kale loo jaraayo qaab noocaas balse midkan waa uu ka duwan yahay sidoo jariinkan hore u soo baranayna mid kale ayaan qaadan doonaa okay sawirka waa kana right click ayaad leedahay kadibna waxaad dooranaysaa open with kadibna waxaad ka dooranaysaa Adobe Photoshop isla markii waxaa arkaysaa inuu sawirkeeni inoogu soo baxayo Adobe Photoshop sida shaashada kaaga muuqata sawirka way noo soo galay waxaan leenahay marka control 0 waxaa arkaysaa sawirka inuu noqonayo fit haddii aad isticmaalaysid Apple command 0 marka waxaa dhici karto markaad tiraahdo control 0 markaad tiraahdo ama eber aad garaacdo waxaa arkaysaa inuusan kuu shaqaynin ha isku dayin marka keyboardka aad isticmaalaysid inaadan isticmaalin xarfaha halkan ha isku dayin inaad isticmaasho waxaad isticmaashaa qaybtan naamlooga ah waayo Photoshop kuma shaqeeya kan ee wuxuu ku shaqeeyaa qaybtan inaan si fiican isla fahanno waa muhiim okay sawirkii waa halkan maxaan sameynaynaa marka hore waxaan u soo baranay 3 qaab haddii aad isticmaalaysid 2020ka inaad sawirka ku jiri kartid object selection kan oo halkaana kadibna aad highlight gareynaysid automatically uu ku koraayo sawirkaaga haddii aad cashirkaas aadan hore u arkin dib ugu laabo cashiradeena cashir kamida ayuu ku dhex jiraa okay ama sidoo kale muuqaalka aad daawanaysid hoostiisa ayuu dhex yaala okay qaabkan waa baranay sidoo kale waxaan baranay inaan quick selection dhahno kadibna aan doorano sawirka booskii aan markaas u baahanahay iyadana waan soo baranay cashirka kale ayaan ku soo baranay okay marka hadda ma isticmaalayno wax quick selection balse waxaan isticmaalaynaa mid kale oo lagu magacaabo pen toolkan ayaa dooranaysaa pen toolkan marka aad dooratid kadibna waxaad awood u leedahay sawirkaaga inaad u jarato sida tan ee hadda aad ka arkaysid shaashada okay hadda anaga waqti uma hayno balse waxaan rabaa inaan kuu sheego haddii aad waqti u haynin isticmaal quick selection balse haddii aad tahay qof waqti haya waxaan kugula talin lahaa pen toolka inaad isticmaasho sababtoo ah pen toolka waxaad awood u leedahay markii aad halkan oo kala jarto markii aad zoom dhahdo waxaad arkaysaa qaladaad kadibna waxaad awood u leedahay inaad booskii aad rabtid aad ka sixi kartid adigoo riixayo control kadibna muuska aad geynaysid booskii aad u baahan tahay markaas inaad saxdo kadibna booskii aad markaas u baahan tahay inaad saxdo marka iyadana waa qaabkaas balse hadda anaga cashirkan waxaan ugu talagalnay qofka inuu fahmo inuu sawir mobilkiisa ku qaadan karo laba in qaabkii loo baahan yahayna ama cabirkii loo baahan yahay inuu qaado waayo hadda sawirkan shaashada inoogu muuqdo waxaad dareemaysaa in everything uu ka dhammaystiran yahay keliya uu rabo colorka in laga saxo kadibna la qaado la geeyo background intaasoo dhan ayaan cashirkeena ku baran doonaa okay waxaan leenahay marka kan oo dhan ayaan iska bixinaynaa control D okay waxaan dooranaynaa marka quick selection aan tagno quick selection kadibna aan doorano sawirka okay sawirka way noo highlight gareysmay everything is done kadib waxaan leenahay marka control alt R anagoo aan aadayno revenge age ka sida uu shaqeeyana cashirka hore ayaan ku soo sheegnay okay halkan markaan joogno everything way noo save gareysan yahay kadibna waxaan leenahay okay markaan dhahno waxaan arkaysaa sawirkii inuu si sax ah inoogu jarmay kaliya inoo dhiman tahay in backgroundkii la saaro maxaan sameynaynaa marka sawirkii backgroundku waan iska cunaynaa waxaa inoo soo haray sawirkii oo qaleel ah oo kadibna
derbigiisana uu yahay transparent ama derbi wax walba u madax banaan in la saari karo. Okay, maxaan sameynaynaa marka? ugu horreyn waxaad furaysaa file menu, kadib waxaad furaysaa new. waxaan u maleynayaa marka qaybtan waxaa la yiraahdaa welcome screen. marka welcome screen-yada Adobe Creative Cloud-yada oo dhan way isla wada qabaan. Okay, waxaad dooranaysaa marka meeshan ay ku qoran tahay photos-ka ayaan dooranaynaa, kadib waxaa halkan ka raadinaysaa 4x6. marka landscape dooro ama portrait dooro, hadhow xagga ayaad ka bedelanaysaa, wax weyn ma ahan. Okay, waxaan sameynaynaa marka aan doorana marka midka portrait-ka ah. muhiimadda halkan ayaa waa sidan waa jiif, sidaanna waa joog. marka hadda sawir teesara waaye, jiif ma ahan. sawirka teesara markay tahay marka as a portrait ahaan ayaan u isticmaalaynaa. Okay, sida tan uu yahay ayaad ku dhaafaysaa, kadibna waxaad leedahay create markaa dhahdo waxaa inoo imaada marka dialog box ama warqad cusub oo aan rabno marka shaqo inaan ka qabano. Okay, maxaan sameynaynaa? waxaad dooranaysaa move toolka ama selection toolka. move toolka marka aad dooratid waxaad tegaysaa taabka kore ama sawirkii hore, kadib sawirka ayaad keli ku siinaysaa. adigoo sawirka haayo ayaan soo qaadayaa, waxaan dul keenayaa booskii aan markaas u baahanahay. Okay, meesha marka su'aalaa jirto. su'aashaas jirtaa waxay tahay, ustaadii why aad u sameyn weyday meeshaan aad background-ka ka jirtay? waan awooday inaan sameeyo new layer, kadibna aan aan kan korgeeyo. Okay, waan awooday sida tan inaan ka dhigo, balse waxaan rabaa inaan kuu sheego sawirka markaa qaabkan u samayso ama kaamirada aad ku soo sawirtay ama mobile ha noqdo ama kaamira caadi ha noqdo, markii aad ku soo sawirto aad keensato Photoshop-ka aad jarato isla siduu yahay haddii aad ku saarto background. waxbaa rabaa inaan kuu sheego, haddii aad ku saarto background, sawirkaas aad qaadato aad geysato meelaha footooyinka ama meelaha printerada aad geysato, waxaad arkaysaa sawirkaaga in uu noqonayo balac because of badankooda printerada waxay u samaysan yihiin 4x6. waayo warqadaha aad arkaysid ee sawirada teesaraha lagu bixiyo waxaa lagu magacaabaa 4x6. marka 4x6 hadduusan warqadaada ahayn ay dhacdo 4x6 inuu ka weyn yahay, waxaad ogaataa in pixel ratio-gaaga ama kaamirada qaabkaad wax u qaaday iyo qaabkaad u bixinaysid inaysan islahaanaynin. waayo inta tib yara rabaa inaan kaa tuso. qaybtan hoose waxaad ka arkaysaa balac iyo dhirirka. fiiri 3024 iyo 4032 difference weyn u dhaxeeyo because of markaad hadhow cadeynaysid cilado badan la kulmay. Okay, waxaan inoo socota casharkeena. Okay, sawirka markaad sida tan u soo gashato, waxaan rabaa inaan kuu sheego marka waxaa dhici karto sawirka markaad sida tan u soo gashato waxaa kaliya sameynaysaa layer ayaad furaysaa, kadibna halkan waxaa ku arkaysaa smart object, kadibna halkan waxaa ku arkaysaa convert to smart object. sidoo kale waxaad awood u leedahay inaad tagto qaybta sawirka, meeshan qoraalka uu ku qoran yahay geeskiisa, inaad tiraahdo right click, kadibna aad tiraahdo convert to smart object. click ayaan siinaynaa. Okay, sawirka hadda waxaan awood u leenahay si walbo aan u yareyno quality-giisa ma dhumaayo. Okay, waxaan leenahay marka control T ayaan leenahay si uu inoogu soo baxo shape-kii markaas aad rabtid inaad yareysid ama inaad weyneysid. Okay, haddii aad isticmaalaysid marka Adobe Photoshop 2020 uma baahnid inaad qabatid shift, kaliya waxaad u baahan tahay inaad qabato alt. balse haddii aad isticmaalaysid 2018 waxaad u baahan tahay inaad la riixdo shift plus alt, kadibna aad muuskaaga bidix iyo midig markaas meeshii aad u baahan tahay inaad ka keento. ha isku dayin marka midna waa rabaa inaan kaa waaniyo, haddii ay dhacdo marka inaad isticmaalaynin Photoshop-ka 20 ama 19 aad isticmaalaynin, haddii aadan alt ama shift aadan riixin, halkan fiiri, haddii aan shift ama alt riixin maxaa arkaysaa? hadhow aad waad kaanaysaa inaad sawirkan sida uu yahay aad ku soo celiso. 2020 wixii ka hooseeya, tusaale ahaan 2020 2018 wixii ka hooseeya aad isticmaalaysid, waxaan kugu waanin lahaa inaad isticmaasho shift plus alt. haddii aad Apple isticmaalaysidna shift plus option, labadaba isla qaban kartaa. Okay, hadda waxaan qabanaynaa maadaama isticmaalayno 2020 waxaan isla riixaynaa alt kaliya, kadibna muuska ayaan isla yareynaynaa. haddii aan altaha qabaninna waxaad arkaysaa gacanteeda sidaas ayuu noqonayaa. marka 2019 iyo 2020 way ku soo base gareeyeen, way ku soo build gareeyeen. Okay, sidan anagoo aan joogno maxaan sameynaynaa marka control 0 ayaan leenahay. sawirka ayaan waxaan kula jimeynaynaa in alaala intaan isdhigi karno uu ku siman yahay garbihiisa iyo asigoo dhan. Okay, waxaa arkaysaa marka sawirka inuu inoogu soo baxay sawir. hadda waxaa arkaysaa sawirka inuu inoogu soo baxay sawir nadiif ah. Okay, maxaan sameynaynaa marka
waxaan sameynaynaa sawirka adigoo sidatan u taagan ayaa waxaa leedahay marka waxaan rabnaa inaan ku darno marka curves iftiinkiisa waxyaalahaas oo dhan okay adigoo jooga ayaad control waxaad leedahay marka waxaad furaysaa filter kadibna waxaad furaysaa new adjustment layer kadibna waxaad ka dooranaysaa curveska markaa sidatan u joogtid okay ayaad leedahay okay markaad tiraadid kadibna wax yar ayaan ku dareynaa sawirka intaan isdhigi karno uu ku filan yahay so kana aan wax yar ka yareyno okay hadda xogeer wuu ila qurux badan yahay macquul inuusan adiga kula qurux badnayn balse ani ahaan 100% okay intaan marka okay yahay waxaad dareemaysaa wiilka inuu ku badan yahay xogeer dhinacan gaduudkiisa iyo wax noocaas marka dadka waxaa jiro dadna gaduudka aadkay jecel yihiin dad cadaan aaday jecel yihiin qof walba sidiisa ayaa ku dhaafi kartaa okay maxaan sameynaynaa hadda waxaad awood u leedahay wiilkan halkan inoo taagan inaad ku dari kartid fin hadduu ku yaalo waxyaalo noocaasana si aad ugu bixin lahaydna cashirka hore ayaan soo qaadanay inkastoo aanan hadda aan ugu talagelin inaan cashirkan kusoo jeedino okay sawirkii waa inoo diyaar maxaan sameynaynaa marka waxaan sameynaynaa sida halkan kaaga muuqata adigoo sawirka doortay ayaad waxaa furaysaa layer kadibna waxaa furaysaa new adjustment layer hadda waxaan ka dooranay curves haddana waxaan ku daraynaa level markii aan ku darno kadibna okay ayaan leenahay okay markii aan dhahno waxaa halkan inoo soo baxayo layerkii ama propertieski aan rabno markaas inaan ku shaqeyno okay haddii aan dhahno zaid ayuu noqonayaa wax yar aan kasoo yareyno okay shadow yar aan ku darno okay intaan waa okay maxaa hal mar inoo dhiman waxaad dareemaysaa marka mar walba aad camera sawir ku qaadaysid waxaad ogaataa dharka in uu xogeer dhuminayo kalarkiisa marka isku day inaad kalarka dib u soo celiso inkastoo cashirkeena hore aan soo qaadanay balse kana dib ayaan u sameynaynaa okay waxaan sameynaynaa marka waxaa furaynaa layer new adjustment layer kadibna waxaan dooranaynaa hue and saturation okay kaliya ayaan ku siinaynaa automatically waxaa inoo soo baxayo hue and saturationka okay maxaan sameynaynaa marka sida hore aan u soo baranay gacanka ayaa dooranaysaa wiilka shaatigiisa ayaa dul tegaysaa ama qofkii markaas aad rabtay inaad ka samaysid kaliya ayaad ku siinaysaa waxyar ayaad dhinacaas u wadaysaa waxaa arkaysaa shaatiga xogeer blue inuu kusoo darsamay okay sidoo kale duplicate ayaad ka samaynaysaa adigoo sameynaya control J waa haddii aad u baahan tahay kalarka inaad sii nadiifiso okay intaan oo dhan waa nugu okay intaan dhan waa okay haddii aan dhahna marka gacanka soo qaadanaynaa haddana xogeer dhinacan ayaa wiilka uu ka gaduudan yahay okay intaan waa inoo nadiif waxaad awood u leedahay marka inaad samaysato sawirkan sida uu yahay inaad u samaysato tusaale ahaan haddii ay dhacdo inuu footo kuu furan yahay intaanoo layer sidiisa ku dhaaf kan keliya ayaa mar walba baxaayo sawirkaad u baahan tahay ayaa soo gashanaysaa intaanoo dhan kalarkoo dhan way ku saxmo wuxuu noqonaa marka sawiradaadoo dhan hal kalar ayuu noqonayaa marka hadhow insha allah casharadeena kiskis ayaan u qaadan doonaa okay sawirka waa inoo diyaar waxoo dhan waa inoo diyaar maxaan sameynaynaa waxaan furaynaa file menu kadibna waxaan leenahay save as markaan dhahno kadib waxaan u tilmaamaynaa destinationkii markaas aan rabnay inaan ku save gareyno save as ayaan leenahay desktopka ayaan tegaynaa desktop markaan tagno waxaan intaan ayaan furaynaa oo qaybtaan because aniga ma rabnaa as a photoshop inaan u save gareyno adiga ahaan waad u save gareysan kartaa si hadhow sawirka booskiisa aad u bedelatid okay halkaan markaad joogtid kadib waxaa leedahay JPEG qofka JPEG wuxuu u save gareyn karaa qofka marka uu rabo inuu ku diro WhatsApp ama inuu ku diro as Gmail ama inuu qof rabo inuu flash ku siiyo kadibna uu rabo in loo soo cadeeyo okay JPEG waan dooranay kadib waxaan leenahay marka BB oo laga wada passport picture kadibna waxaan leenahay Cabdi Fataax ayaan leenahay Cabdi Weli ayaan leenahay okay kadibna waxaan leenahay save kadib wuxuu ku weydiinayaa marka quality-ga aad rabtid inaad u save garaysid way dhici kartaa inuu halkan ku taagan yahay laakiin isku day mar walba inaad furto halkan kadibna aad ka doorato maximum because of maximum markii aad doorato waa meesha ugu fiican qaybtaana qabo oo small file-ka qabo gay maximum ilaa iyo inta ugu quality-ga badan then waxaan leenahay save ama okay markii aan dhahno aan tagno desktop-ka sawirkii waa halkan inoo saaran yahay double click haddaan siino isla markii waxaa arkaysaa sawirkii oo nadiif ah inuu inoo saaran yahay desktop-ka ugu dambeyn wixii aad raadinaysay waa aad heshay fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad inoo subscribe garayso channelka sidoo kalena aad inoo like garayso muuqaalka hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashir walba oo aan markaas soo dhigno waa anigoo ah Cabdiweli Maxamed waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo iyo cashirka xiga
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.